waalid waxaan ka hadlayno waa laba qodob. Saamaynta shishe uu keeni karo bullyingka, effectiga uu keeni karo, the long term effect uu ilmaha ku keeni karo caafimaad ahaan xagga jirkooda, caafimaad ahaan xagga maskaxdooda, iyo amnigooda iyo nabadqabkooda inta. waxaan kaloo eegaynaa xalku muxuu yahay, xalka practicalka ah in waalidka uu tilmaamayna ee uu samayn karo bullyingka. bismillahi assalaamu calaykum waalid, waxaad nagala socotaan janaalkii ahaa Waalid Legacy. waxaanu ka soo hadalnay bullyingka iyo qeexidiisa. waxaanu ka hadalnay astaamaha lagu garto ee uu waalidku ku garan karo ilmahan uu iskuulka u diray bullying inuu ku socdo. waxaan sheegnay inuu ilmuhu ku cararayo musqusha markuu yimaado, maxaa yeelay iskuulka ma aadi karo meesha lagu xaajaysto. waxaanu ka hadalnay markuu guriga yimaado inuu ilmuhu gaajoonayo, maxaa yeelay meesha cuntada lagu cuno ma aadi karo. waxaanu ka hadalnay in aroortii marka ay loo kiciyo iskuulka ilmahaasi uu cagajiidayo, uu xanuun isku ridayo. dhammaan waxyaabahaasoo dhan waxay ahaayeen astaamo ku tusaya ilmahan in iskuulka lagu bulli garaynayo. maanta waalid waxaan ka hadlayno waa laba qodob. saamaynta shishe uu keeni karo bullyingka, effectiga uu ku keeni karo, the long term effect uu ilmahan ku keeni karo caafimaad ahaan xagga jirkooda, caafimaad ahaan xagga maskaxdooda, iyo amnigooda iyo nabadqabkooda intaba. waxaan kaloon eegaynaa xalku muxuu yahay, xalka practicalka ah in waalidka u tilmaamayno ee uu samayn karo, iyo diinteennu waxa ay ka tiri bullyingka. waxaan rabaa waalid inta aanan sii soconin inaad fadlan muuqaalkan aad subscribe tiraahdo channelkan, walaalaha muslimiinta ana aad la wadaagto channelka Waalid Legacy si khayrka aan u wadaagno. muxuu yahay astaamaha lagu garto bullyingka? waan sheegnay. waxaan hadda ka hadlayna waxa weeyaan saamaynta, effectiga uu ku yeelan karo ilmaha. u fiirsa waalid, ilmaha waxbarashada wuu nacayaa, gradekiisu hoos buu aadayaa. maadooyinka sayniska, maathka, readingka, englishka, dhammaan gradekooda hoos buu aadayaa. hami sare oo waxbarasho u qabo ma jirto, jaamacadda aad kuma jirto, wax noqo kuma jirto. ilmahaas waalid waxaa burburay dhammaan hankii fogaa ee la rabay inuu xambaaro, qorshihii fogaa ee aad ka rabtay iyo mustaqbalkiisa guushii aad la rabtay waa burburay. maxaa burburiyey? bullyingkaa burburiyey. aan eegno xagga caafimaadka maskaxda. ilmaha waxaa ku dhacaya depression, waxaa ku dhacaya weliba extreme level of depression. depressionka noociisa u sii xun baa ku dhacaya. ilmahana habeenkii oo dhan wuu soo jeedaya. waxa u sawiran waxa weeye koox bulli garaynaysa, diintiisa ama diinteeda ku bulli garaynaysa, muuqaalka gabadha ama muuqaalka wiilka ku bulli garaynaysa, qaabkay u hadlaan ku bulli garaynaya, midabkooda ku bulli garaynaya. habeenkao dhan way fikirayaan, subaxii iskuul ma aadi karaan. wejigooda waxaad ka garanaysaa ilmahan inay waxsi ka yihiin. cunto badan ma cunayo, kama degayso cuntadu. waxaad arkaysaa ilmahan habeenkiina waa soo jeedaa, maalinkiina waa caajisan yahay, cuntana ma cunayo, bulshadiina waa iska go'doomiyey, muuqaalkiisoo dhan baa baaba'ay. sidoo kale waxaa ku iman doona ilmahaas inuu nolosha naco oo uu isku dayo inuu isdilo. waxaad raadisaa ood research ku samaysaa waalidow, inta arday, inta caruur ee isdishay waddamadan qurbaha ee waalidkood uga tegay note ee yidhi hooyo, aabe, nolosha wax damboo faa'iido on ka leeyahay ma jirto. waxaana sidan aan u sameeyey waxaa ii geystay waa bullinka laygu wado. maxaan meesha ka garanay waalid? bullinka inaanan yaraysan karin. ilmaha caafimaadkiisaa burburay, mustaqbalkoodii waxbarashaa burburay, maskaxdooda iyo deganaantooda burburay, ilaa marka u dambaysa ilmahaas nafta uu iska qaadi karo. wayna dhacday. wax walba oo Waalid Legacy channel aan idiga sheegno waalid waa wax dhacay. qodobka xalka aan eegno, ilmihii waad aragtay bullying inuu ku socdo. maxaad samayn waalid? dhowrkan qodob samee. waa marka hore adigu isdeji, calm down. waalid cadhaysan waxba ma xalliyo. ilmaha la fadhiiso. marka uu kuu sheego in la bulli gareeyo, u sheeg marka hore cid bulli garayn kartaa inaanay jirin, sistamku inuu iyaga la jiro, macallimiintu inay isaga la jiraan ama iyada la jiraan, adiga waalidkaa inaad garab taagan tahay, moral support sii. kadib tallaabooyinkan qaad. waxaad weydiinaysaa what, when, where, why. yaa ku bulli gareeyey? ma qof, ma koox,
ma system. goor baa lagu buligareeyey, ma shalay, ma sitiimaankii hore, ma bishii hore, ma wuxuu ahaa wax sannado soo socday? xaggee lagugu buligareeyey bulinku ka dhacay? ma musqusha, ma kalaaska, ma meesha cuntada lagu cuno, ma parking lot? maxay kugu buligareeyeen? ma cyber bullying ba oo waa taleefano lagu soo diray, muuqaalo lagaa duubay adoo musqusha ku jira, mise muuqaalo lagaa duubay adoo intaad qof isdagaasheen markaa dhulka lagu dhigay oo laysugu kaa tegayo muuqaalkaasaa la wareejinaya. ilmaha waxyaabaha hurdalaanta u keenaya waxaa waaye ilmahaasoo laysugu tegay oo dhulka yaalla oo la laagayaa la duubay, mar walba waa la wareejinaya. adigana kuma sheegi karo waalid, cid kale u sheegana male, hurdadaa ka tegaysa. waxyaabaha cyber bullying uu keena wey. weliba cyber bullying markaan ka hadlayno 7 ilmoodba mid baa lagu sameeya. waa arrin khatar ah. intaasoo macluumaada waalid markaad hesho aad iskuulka principalka iskuulka la fadhiiso, u sheeg dhammaan waxaan oo dhan. text message-yada aad hayso iyo evidence-ka aad hayso dhammaan u sheeg. haddii waxani ay muddo soo socdeen, ilmahaas iskuulka ka bedel, waayo ma sii dhigan karo. arrimahaasi waa practical solution oo waxyaabaha aan qaban karno. diinteenaan eegno, rasuulka sala allahu calayhi wasalam carruurta wuxuu bari jiray cid aan ilaahay ahayn jalla wacalaa oo wax ka qaadi kartaa male. tusaale, ina adeerkii ibnu cami rasuulillahi sal alla alay slam ibnu cabbaas, rasuulka sal slam markuu dhimanayay 13 sano jiray, 9 sano jirayna waa la yidhaahdaa. waxaa jirtay ibnu cabbaas inuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida, yaa ghulaam innii ucallimuka bikalimaat, wiil yahow yar waxaan ku barayaa kelmado. kelmadaha uu baraya waxaa ka mid ahaa, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ogow yiri ibn Cabbaas markaa waa ilmo yar 10 xitaa ma gaarin. haddii adduunka oo dhan isu tago inay adiga wax kuu dhimaan ama wax kugu sameeyaan ama si kale haddaan u dhaho ay ku buligareeyaan, waxba kaama qaadi karaan ilaa ilaahay wuxuu qoray mooye. u fiirsa marka, rasuulku sala allahu calayhi wasalam ibnu cabbaas oo da'daa jiro ilmo yara ayuu wuxuu barayaa cidnaha ka ogolaan bullying inay kugu samayso. diinteennu marka waxayna baraysaa waalid in ilmaha markay yar yihiin aan ku beerno kalsooni, aan ku beerno geesinimo, aan ku beerno cid wax kaa qaadi kartaa male, ilaahay aan ku xidhno. taasi waa qodob, waa sunnada rasuulka sal alla alay slam. lambar 2, saxaabadu kamaanay ogolaan jirin in xitaa quwadaha waaweyn markay la hadlayaan ay bulligarayaan. rubci ibnu caamir saxaabiga la yidhaah wuxuu la hadlayay rustum oo ahaa boqorkii ama quwaddii markaa ugu weyneed. rubciyi markuu la hadlayo rustum wuxuu isku dayay inuu bulligareeyo saxaabiga la yidhahdo rubci ibnu caamir oo wiil dhallinyaro ahaa. markaasaa xitaa kuraastiisu waxay ahaayeen kuraas barkimo dahaba ku fadhiyey, boqorkaa rustum la yidhaahdo. markaad soo gasha qasrigiisa waad ku indhisarcaabaysay. wuxuu rabay inuu bulligareeyo, hadalna ku bulligareeyo, meeshan uu jooga iyo dahabkani waxna ku bulligareeyo. markuu soo hor istaagay wuxuu ku yidhi, war maxaa tihin, xaggee ka timaadeen? orda haddaa cunto rabtaan wayda siinaynaa, haddaad dhar rabtaan wayda siinaynaa, noqda maxaa tihin? rubci ibnu caamir dahabkaa ma eegin, awooddan ma eegin, boqorka la hadlaya ma eegin, laakiin waxaa qalbigiisa ku jiray dardaarankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa cidnaha ka ogolaan inay ku bulligariso. markaasuu wuxuu ku yidhi, idhegaysa rustumow, haddaad isku dayayso inaad annagana bulligarayso, ogow annagu waxaan nahay qowman ibtacafana allah linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad. waxaan nahay dad loo soo saaray addoonnimada inay adiga kaa saaraan. adiga rustum ah ee boqorka sheeganaya, ee awoodda sheeganaya, ee isku dayay annaga inaadna bulligarayso, waxaana loo soo diray dulliga adiga inaan kaa saarno. wa min diiqi dunya ilaa sicati dunya waalaakhira. cidhiidhigan adduunka haddaad moodi lacagtaada inaad nagu bulligarayn karto, cidhiidhigan aad ku jirtaan waxaan nahay qoom loo soo saaray inay igaga xoreeyaan oo waasicnimada adduunka iyo waasicnimada aakhira ida gaadhsiiyaan. ومن أجوال iyo inaan idaga saaro dulmiga diimahan aad samaysateen oon ida gaadhsiino ila alcadli alislaam, cadaaladda islaamka. dulmigan aad isku haysaan, nidaamkan dulmiga ku dhisan eed isku haysaan, eed isku bulligaraysaan inaan idaga xorayno oo cadaaladda islaamka aan idii xorayno. subxaan allah, u fiirsa marka, saxaabadu jiilkaasi ahaayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu baray inaanay cidna ka ogolaan inuu bulligarayo. idan waalid waxaan arkaynaa practical solutionkana waxaa weeyaan ilmahaaga inaad u sheegto cidna inaanay bulligarayn karin markaad astaamihii aragto,
markaad wax walba aragto markaad xogtii hesho iskuulka inaad aado ood fiiriso yaa bulli gareeyay ma koox ma system ma macallin ma hal qof muddo intee leed u socday ma cyber bullying baa sawiraan laga hayaa text messageyaa laga hayaa ma musqushaa lagu bulli gareeyey ma meesha cuntada lagu bulli gareeyey ma kalaaskaa lagu bulli gareeyey mise parking lotka aad ogaato waxaa markaad ogaato iyo goorta ay dhacday aad la doodo ilmahaagana aad garab istaagto iskuulkana aad ka bedesho waalid legacy janaalka la yidhaahdo wuxuu mar walba idiisoo gudbin doonaa qaabka ugu fiican ee carruurta loo badbaadin karo insha allahu tacaala annagoo xog iyo dhaatana waalidiinta la wadaagayna aayadihii qur'aanka iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalamna idinla wadaagayna fadlan subscribe dhaha walaalaha muslimiinta oo dhanna la sheer gareeya